wasiirka hore wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Salmaan Axmed Ciise Xafle Toosiyo goortan booca wafoonka ee magaalada Dubai ugu waramay telefishinka caalamiga ee bulsho ayaa si adag u dhaliilay madaxweynaha qaranka Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi wasiirada wasaaradaha biyaha iyo maaliyadda Salmaan Cali Koore iyo Yuusuf Maxamed Cabdi waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya oo goortan booca waa khadka telefoonka kula yeeshay Dr. Xafle Toosiyo ayaan ugu horeynba weydiiyay sida uu arko hadal dhawaan ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda maaliyadda oo siyaabo kala duwan loo falanqeeyay waxaanu ku jawaabay قاف من الحد الحوار حيه ما نقدر وجهده وكراها واقرته لكن وحوار كان كل ذا capacity إيسا عقل إيسا hadafkiisa meeshuu gaarsan yahay ayuunbuu ka turjumay dhulbaante iyo lascarood iyo boolo iyo guud ahaanba dhulbaantana anaa xaal ka siinaya waan gartay wixii uu ku hadlay dhulbaante muusuu doortay muusana ninkan buu soo diray marka anna waxaa ka mid aha raggii u ololeeyey muuse haye u malin maayo muuse in uu wasiirkiisa kula socday hadalka noocana waan gartay dhulbaanto ka dhigaya bilaadiin haye muwaadin la-aan haye wax noocaasa waan gartay waxaan ugu baaqayaa madaxweyne muuse in uu sida ugu dhaqsaha badan le ninka u bedelo tallaabana ugu qaado edabdarrada waa edabdarro wey iyo dhaqanxumada uu wasiirkiisa maaliyaddu kula kacay gobolkaas waan gartay Dr. Xafle Toosiye mudane wasiir sida aan la wada socono wasiirku wuxuu yiri hadalkaygu waa la bedelay ma daawatay muuqaalka uu leeyahay hadalkaygu waa la bedelay isagu waan daawaday qof kasta oo reer Somaliland ay lagu daawaday oo aad adigu ka mid tahay waan gartay war shacabka reer Somaliland Roosol oo ka dhigaya kuwa bilaadiina kuwa bilaadaqana kuwo aan muwaadiniin ahayn qof kasta oo daawaday hilibka wasiirkaas wuu garan karaa edabdarrada uu ninkaas u jeedin waan gartay waxaan ku weydiin lahaa dhowaan waxaa la warbaahinta isu mariyey siyaasi baashe cali jaamac Salmaan Cali Koore iyo weliba Cali Sandulle oo dhammaantood aad isku deegaan ka soo jeedaan bal hadallada kala duwan ay isweydaarsanayaan aduu sida aragta ruuxaantii ma doonayn in aan ka hadlo arrimaha haye laakiin khaladka wixii ku dhacay baashe cali jaamac iyo wixii ku dhacay cali sandulle waxaa mas-uul ka ah saaxiibkay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane muuse biixi cabdi markaas siduu uga mas-uuliyey madaxweynuhu mudane wasiir wuxuu uga mas-uul yahay waxa uu magacaabay reer dhufaan ah waan garta maxaad uga jeedaa dhufaan geel ma leedahay hadaad ya geel adigu geel ma leedahay wasiir adaan ku weydiinayaa talo maxaad uga jeedaa waxaan uga jeedaa reeriga dhufaanka ah
وأور وحرته وانقرت وقت يا أغاره انتلالك هي وقت يا برواغبة ها أور كاسي وحفاريدا ماله وانقرت وحجرة غيري بارقبة غيري بفارة وانقرت غيري بارقبة وقتي وواغب بعدو كيرا يقدر كيرو فيها وانقرت لكن في مفاجأة ها وقتي قدر وقتي بواغب وانقرت waxay u egtahay muuse biixi in uu magacaabay awr uu feray oo dhufaan ah kaasna wuxuu sababay in uu caayo oo aflagaadeeyo oo uu ku rafto غريغي باقفك واحد رفاي قورة يرفع بصارة هي علشان نقول يبقى سؤالي كامع وغري باقف يا الله هي أنا سلام ورغم واحد بدلك الشيء ماي لكن بدنا وسير dad badan oo ina dhageysanaya oo taabanay telefishinka bulsho waxay isweydiinayaan xagla toosima markii xilka laga qaaday ay ragani geesiyaal noqdeen oo waqtigii mucaaradka ahaa waxa loo dogay baashan wuxuu ka soo jeeday xisbiga wadani adna xisbiga kulmiye mise awalba sidaas aad qabtay oo Salmaan Cali Koraas ku xisbiga aydan saas aad u haysatay ma anu wali meela aadin waan garta wali xisbiga ma gelin waan garta wali go'aan ma gaarin waan garta wali meel kala soo jeedin haye سؤال الودين شيء مكتوبية. وان قرطي سيفي عن. سؤال مثل هذا أمكن جواب ويك فيها. هيه. السندولي وباش على الجامعة أيوه بتشواري. هيه. يا روح على وشواري مكان. وان قرطي. هم حيها. jawaabtiisu waxa ahayd waan ka xumahay waan garan karaa xanuun iyo basaaradinay jirto haye soomaalida waa saa waa yidhi wasiirku waxaan filayay muuse inuu ninka eryo oo bedelo waan gartay inuu bedelin nala eryin haye haye ninka Salmaan Cali Koore ha Salmaan Cali Koore Salmaan Yusuf ha duqaatu yaqaan Salmaan Hungani maxay yaqaanaan Salmaan Hungani Salmaan waa yaqaan waan gartay shaylo waa weyn waa laga hayaa oo maxay ay kamid yihiin haddaad bulshada la wadaagto ninka marka xilka hayo ee wasiirka ha waxa wanaagsan ha in aanu qofaan xil hayn ha ka hadal waan gartay waayo qofka aan xilka hayn ha bulshada accountable uma aha waan gartay laakiin waxaa bulshada accountable ka markaa wasiirka waan gartay Salmaan isaga hadda wasiir haye kun fayl oo cas baan ka haynaa ummadda waxaan u soo bandhigaynaa waxa uu yahay
wasiirka biyuhu isna wuu yahay laakiin wasiir haddii uu xukuumadda ku jiro ka difaacay dad dibadda ka jooga oo mucaarada adigu maxaad ku diidantahay muuse biixi waa madaxweynaha somaliland waan garta madaxweynaha somaliland xabxablaha iyo moosmaha iyo shaarlaha iyo tagsiiraha dad waliba waxbay ka sheegi kartaa waan garta maaha wasiiradiisu ama wasiirada uu magacaabay muuse biixi mid ka mid ahi ma difaaci kara madaxweynaha somaliland madaxweynaha somaliland saaxiib baan nahay muuse waan gartay wadayinka aad buu necbin ila rumbani oo salaam rumbaniya waan gartay wasiirka biyaha laba dhinac dhulbahanto midba ma habo muuse waa ka jeclaa wala raada muuse laakiin mudane xagla toosi waxaad ahayd haddaan kaa dhex galo hadalkaaga wasiir dadka ugu dhow madaxweyne muuse biixi waraysi horena aan kaa qaadaysan ku sheegnay madaxweyne muuse biixi mar haddaad isku dhaweydeen dhawaan hargeysaad joogtay intaan iminka duway tegin ma la xidhiidhay oo ma u sheegtay dhaliilahan aad u hayso wasiirkiisa biyaha maadaama xisbigiisina tahay mas-uuliinta ugu sarsareeya ma sheegin lamana xidhiidhin marka waan gartay anoo ka faa'iidaysana jaaniskaaga saaxiibada oo tiro badan oo xisbiga kulmiyaha oo wada garanayso waxay shaaciyeen gudoomiye qaar inuu tartamayaan qaar waxay marka waqtigeeda la gaaro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadana Dr. Ciro Burcakaali wuxuu boqornimada soo la socoto xiran waxa loo xiray siyaasadda xisbiga kulmiye gudihiisa ka haloosan oo gudoomiye loo tartamaya Dr. Salmaan Axmed Ciise waa nin la wada garanay qaranka Soomaaliland uu soo shaqeeyay haatanna ku jira saaxiibada dhowdhow ee madaxweyne biixi iyo waliba mas'uuliyiin sarsare xisbiga kulmiye marna ma istir saaxiibka biixi xisbiga ugu soo wareejide mar hataa talada dalka hayso xisbiga doori maayo waan garta ugu wareejinayso waxaana waa qabyaalad iyo qabiilka waan garta dadkaan ku sheegaya qabyaalad iyo qabiil baa jira waan garta xabiga ku sheegaya waan garta xaray turin xaray hamran waan garta muusadiisi aniga waa saaxiibkay waan gartay waa dhisa waan garta laakiin waxaa iga xigsanaya muusadiisi xukuumaddiisu waxay la kulmaysaa waxyaaba talbanjes haddii muusadiisi sida uu ku socdo uu kusii socdo xukuumaddiisu soconayso muusadiisi wuxuu u baahan yahay Dr. Xagla Toosiye wararka qaar xogo waxay sheegayaan in aad xilal u doonanayso maamulada Puntland ama Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya ama maamulka Puntland oo aad imika siyaasadda Somaliland ba ka sii jeedo xagga u sii jeedo bal arrintan maxaad ka oran lahayd hadu arrinka waxa weeye horta markii hore waa been ay sameeyeen qabka difaacan ee muusadiisi oo aad maxay ula jeedo wasiirada uu muusadiisi u magacaabay rubaante ayaa loo yaqaanaa awrta difaacan anigu xor baanayaada tawri haye Somaliland waa jeclahay waa taageersanahay waan garta laakiin ma taageersanin
somalilandka awrta heriga ee dhufaanan loo soo dirayo dhulbaante waan garta garowe tolkii baa jooga haye dadkaygaa jooga waan garta waa tegi karaa waa magaaladeydii waa dadkaygii haye laakiin anigu somalilander baan ahay waan garta haddaanu muuse ikhasbinna somalilander baan ahay laakiin hadda siday tahay muuse wuxuu doortay awr dhufaadan oo raraya marka sidaa daraaddeed hadalkaaga waxaan ka fahmay haddii ay mas-uuliyiintaasi sii garab joogaan oo ay kamid ahaadaan maamulka madaxweyne biixi uu soo dhisay xukuumaddiisa adigu somaliland ma sii ahaanaysid anigu somaliland waan ahay muusena anaa ka somaliland dirsan waan garta laakiin muuse haddii uu sii rarto karayda dhufaanan ee dhulbaante anugu baarqab baan ah waan garta baarqabna ma ogolaado karay haye dhufaanan weliba dhufaanan waan garta marka waa isku dhacaynaa haddii ra-iisul wasaare khayre ama madaxweyne cali gaas uu xilku siiyo ma qaadanaysaa aniga xili ma siiso waan garta anaa qaata kaan doono waan garta haddii aanu muuse biixi heshiin weyno oo ku heshiin weyno sida uu waxu wado cid ugu xukumaysa inaan hargeysa jooga ma jirto luqmaan maxamed faarax bulsha t v hargeysa